waxaana wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka iyo wararkii ugu dambeeyay caalamka. barnaamijkan waxaan uga hadli doonaa filan Soomaaliya oo saraakiil iyo ciidamo ay soo xushay dhigtay kontaroolada laga gala magaalada caasimadda Muqdisho. madaxtooyada Soomaaliya isbedel ku sameysay saraakiisha iyo ciidamada ku sugan baraha kontaroolada ee laga soo gala magaalada caasimadda Muqdisho, iyadoo ciidamo iyo la taliyayaashii hore lagu bedelay kuwo cusub oo halkaasi la geeyay, iyadoo dowladda Soomaaliya ka baqayso xiisada dabcan ka taagan dalka ay cirku iska sii shareerto, iyadoo madaxweynaha madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo markaasi gabagaba yahay. talaabadan oo muddooyinkii u dambeysay si tartiib u socotay ayaa la sheegay inay tahay qorshe lagu adkeynayo ammaanka caasimadda, gaar ahaan baraha laga soo galo Muqdisho iyo goobaha lagu hubiyo gaadiidka. hase yeeshee ila xog ogaal ayaa sheegaya in arrintu ay sidoo kale leedahay miisaan siyaasadeed oo la xiriira marxaladda kala guurka iyo loolanka doorashada. magaalada caasimadda ee Muqdisho muddooyinkii u dambeeyay waxaa ka jiray ismariwaa xooggan oo u dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo mucaaradka oo markaasi ku dhawaaqay in 10 bishan ay qaban doonaan banaanbax xooggan ay kaga soo horjeedaan dowladda warka iyo Xasan Sheekh Maxamuud. la taliyayaal iyo ku-xigeenadii hore ugu sugnaa baraha kontaroolada Muqdisho ayaa la bedelay gobolada dalka kadib markii filan Soomaaliya ay u aragtay inaysan si buuxda ula jaan qaadi karin qorshaha siyaasadeed ee madaxtooyada xilligan xasaasiga ah. sida ay warbaahintu u xaqiijiyeen ila lagu kalsoon yahay filan Soomaaliya ayaa xoojisay awoodda ciidamada iyo saraakiisha lagu kalsoon yahay, kuwaasi oo loo kala qaybiyay gudaha magaalada Muqdisho iyo baraha kontaroolada ee laga soo gala magaalada caasimadda Muqdisho. isbedelka ugu weyn ee laga dareemayo dhinaca waqooyiga Muqdisho, gaar ahaan wadooyinka ka yimaada duleedka degmada Kaaraan ilaa suuqa xoolaha, ciidamo xooggan oo halkaasi muddooyinkii u dambeeyay ku sugnaa ayaa la bedelay, iyadoo madaxtooyadu u aragtay inay yihiin cudud amni oo xiriir dhow la leh mucaaradka, gaar ahaan madaxweynihii hore ee dalka Sheekh Shariif Sheekh Axmed, sida ay ila amni xaqiijiyeen. saraakiisha hogaaminaysa ciidankaasi ayaa lagu bedelay saraakiil cusub oo lasoo xulay madaxtooyada, taasi oo qayb ka ah waa markaasi dadaalka ay filan Soomaaliya ku doonayso inay si dhow u maamusho amniga caasimadda, gaar ahaan waa markaasi dhaqdhaqaaqyada xilligan la marayo marxaladda kala guurka oo dabcan markaasi dalku marayo. arrintan ayaa imaaneysa xilli xiisada dalka ay marayso meel xasaasiya, iyadoo mucaaradka Soomaaliya ay markaasi ay doonayaan in 10 bishan ay ku dhawaaqaan mudaharaadka dhanaca dowladda federaalka Soomaaliya. guddiga doorashooyinka qaranka ayaa shaaciyay jadwalka la xiriira doorashooyinka heer dowlad goboleed, balse weli waxaa lagu muransan yahay bayaanka doorashada heer federaali sida kala guurka heshiiska siyaasadeed loo dhan yahay. mucaaradka ku mideysan golaha mustaqbalka Soomaaliyeed ayaa sheegay inay diyaar u yihiin wadahadal siyaasadeed, balse waxay ku xireen shuruudo ay ka mid yihiin in la joojiyo tallaabooyinka doorasho ay tilmaameen kuwa hal dhinaca lana abuurayo hannaan dhexdhexaadina oo dhinacyadu ku kala duwan yihiin. xiisada ayaa sii xoogeysanaysa muranka ka dhashay waa isbedelka dastuurka, walaaca mucaaradka ee ku saabsan geedi socodka doorashooyinka loo adeegsan karo qaab muddo lagu kororsan karo ama lagu kalsoon yahay. mucaaradkii xilligaasi ayaa ku eedeeyay madaxweynaha Soomaaliya madaxweynihii hore dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in ciidanka dowladdu u adeegsaday caburinta siyaasadda kasoo horjeeda, gaar ahaan madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo madaxweynaha hore iyo Shariif Sheekh Axmed. dowladda xilligaasi ayaa dhankeeda ku adkeysanaysa inaysan jirin tallaabooyin la xiriira dhinaca amniga caasimadda Muqdisho. isbedelka haatan lagu sameeyay saraakiishii ciidamada ku sugan baraha kontaroolada Muqdisho ayaa sidoo kale loo arkaa tallaabo amni oo fariin siyaasadeed ah, maadaama ay kasoo beegantay xilli filan Soomaaliya iyo mucaaradka isku hayaan jihada loo qaadayo hanaanka doorasho ee dalka ka dhacaysa.